daawade waa xubinta ganacsiga ee warka Jubbaland TV waxaynu ku soo qaadan doonaa maciishadaha magaalada Kismaayo iyo heerarka kala duwan ee ay marayaan sidoo kale waxaynu kaga hadli doonaa suuqa xoolaha iyo markaas ganacsiga xoolaha inta uu marayo shirkadda Google oo qiyatay in mid kamid ah aaladaheeda uu ku jiray mikrofon cod qarsoodi ah duubaya sidoo kale shirkadda Facebook oo lagu haysto dacwado la xiriira bixinta sirta macaamiisheeda qodobadaas ayaynu daawadeel kaga hadli doonaa aan gudaha gale loorka sokorta ayaa maanta lagu kala iibsanayaa magaalada Kismaayo $22 iyo badh loorka bariiska midkiisa ugu qaalisan ayaa la kala siisanaya $41 bariiska midkiisa xiga ama ugu raqiisan ayaa la kala siisanaya $25 caaga saliida ee 20 laha ayaa la kala siisanaya $16 iyo badh baastada dheer ayaa la kala siisanaya $7 iyo $7 iyo badh baastada makaroonida ayaa la kala siisanaya $7 iyo badh ilaa $8 gasacaanaha fresh ayaa la kala siisanaya $12 gasacaanaha muro ayaa maraya $12 iyo badh sarifka lacagaha qalaad ayaa daawade $100 waxaa labada gamcood lagu kala qaadanayaa 2,450 shilin Soomaaliya iyo 2,430 shilin Soomaaliya suuqyada xoolaha ee markaas magaalada Kismaayo ayaa waxaa markaas uu geela maanta marayay 22 milyan oo shilin Soomaali ah kiisa ku xiga markaas waxa uu marayay 18 milyan oo shilin Soomaali ah geela kiisa kawaanka ama ugu raqiisan ayaa waxa uu marayay 8 milyan oo shilin Soomaali ariga kiisa birmada ayaa waxa uu marayay 2 milyan iyo 300 oo shilin Soomaali ah kiisa ku xiga ayaa waxa uu marayay 800 milyan oo shilin Soomaali ah ariga kiisa ugu raqiisan ama suguntada ayaa waxa uu marayay 800 oo shilin Soomaali ah dameeraha ayaa daawadayaal maanta magaalada Kismaayo suuqa magaalada Kismaayo waxa lagu kala iibsanayay 4 milyan iyo 500 oo shilin Soomaali ah kuwada ku xiga ama markaasi waxa la kala siisanayay 300 iyo 3 milyan iyo 500 oo shilin Soomaali ah muunanka ama kuwa dameeraha ugu raqiisanaya waxa la kala siisanayay 2 milyan oo shilin Soomaali ah daawade dhanka markaasi shirkadda Facebook ayaa waxa daawadayaal lagu haystaa dacwado la xiriira bixinta sirta macaamiisheeda gudoomiyaha gobolka New York ayaa amar ku bixiyay in baaritaan lagu sameeyo shirkadda isgaarsiinta baraha bulshada ee Facebook shirkadda isgaarsiinta bulshada ee Facebook talaabadan ayaa imanaysa kadib markii uu baaritaan sameeyay wargeyska The Wall Street Journal oo lagu ogaaday in shirkaddu ay ururisay macluumaad ku xadgudbaya xuquuqda macaamiisha isticmaasha adeegeeda warbixinta ayaa sheegtay in Facebook ay arki karto macluumaad khaas ah oo ay kala baxayso taleefanka macaamiisheeda iyadoo aan ogolaanshiyo weydiisan iyo iyadoo aan xataa qofku isticmaalin ciwaanka Facebook ayaa haatan iska difaacaysa dacwado ah oo ka yaala maxkamadaha Mareykan iyo Yurub oo ku saabsan inay ku xadgudubtay khasuusiyaadka macaamiisheeda dhanka kale shirkadda Google ayaa daawaday waxa ay qiratay in mid kamid ah aaladaheeda uu ku jiray mikrofon duubi kara codka sirta ah shirkadda Google ayaa sheegtay in qalabkeeda loo yaqaan Nest uu ku jiray mikrofon duubi kara codadka dadka guryahooda ku nool iyagoo aan ogeyn waxayna qiratay in ay ku qaldanay talaabadan war saxaafadeed ay soo saartay shirkadda maalinimadii Arbacada ahayd ayay ku sheegtay in mikrofonkan aysan ku duubaynin waxa ay dadku ku sheekaystaan balse kaliya lagu ururinayo codadka halista ka turjumaya sida shanqadha jabitaanka dhalooyinka iyo rasaasta dhicitaankeeda sidoo kalena ururada u dooda xuquuqda macaamiisha ayaase gaashaanka u daruuray marmarsiyadeeda iyagoo sheegay inay ku qaldan tahay in aalad codadka duubta oo uusan ruuxu ogeyn loo galiyo gurigiisa arrinkana ay dhaawacayso kalsoonida ay macaamiishu ku qabeen adeegyada shirkadda Google warbixintan ay Google soo saartay ayaa sii kordhinaysa cabsida ah in shirkadaha waaweyn ee teknoolajiyadda ay macluumaadka aadka xasaasiga u ah ee ku saabsan macaamiisha ay urursadaan ogolaanshiyo la'aantooda daawadayaal xubinta ganacsiga ee warka saacadda warka Jubbaland TV oo idin la socodsiinay anigoo Ilhaan Lakiya intaas ayuu noogu dhan yahay waxaan idin ku celinayaa Axmed Toronto iyo qaybaha dhiman ee warka